قرب صادم قتشتم مدن مدحوينه كحجين waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya munaasabada 20 guurada asaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku xigeen ku soo dhawow waxa maanta xarunta taliska ciidamada qaranka Soomaaliland lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidamada qaranka Soomaaliland waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha jagada madaxweynaha iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani taliyayaasha ciidamada militariga booliiska ilaalada xeebaha iyo asluubta iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland iyo marti sharaf kala aad badan ugu horreyn waxa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Xuseen Shaqalle oo isagu ka warramay marxaladii kala duwan ee muddadii 20 sano ahayd ee ay soo mareen ciidamada qaranka Soomaaliland taliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland Sareeye Gaas Ismaaciil Xuseen Shaqalle oo isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yiri laga soo bilaabo sanad guuradiisii koobaad ilaa maanta oo 20 jirsaday wuxuu ku foognaa difaaca qarannimada lama taabtaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u horay naftiisa qaaliga ahayd u dabaaldega sanad guurada 20aad waxaa ku lamaan u dabaaldega sanad guurada koobaad ee maalinta taabagalka taasoo ahayd maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo kaga dhabeeyay ballanqaadkiisii ahaa bixinta darajada ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo madaxdii ka horeysay aanay fulin qaadashada darajadu waxay buuxisay karaamadii iyo kala dambeyntii madaxda kala duwan ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiil xigeen alifley iyo dabley waxaanu ahayn markii hore ciidan jabhadeed isdhex yaaca oo aan waxba ku kala suntanayn balse maalintii darajada la qaatay waxaa buuxsatay karaamadii dowladnimo ee ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale isaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud ayaa isaguna waxa uu hambaliyay ciidamada qaranka Soomaaliland waxa uu ciidamada qaranka Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay xilka ay qaranka u hayaan ay halkaasi ka sii wadaan wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud isaguna arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri maanta wasiir ku xigeenka gaashaandhigga ahayna wasaaraddu waxa ay u samaysaa ciidamada ay u raadisaa koorsiyada dibadda iyo kuwa gudaha labadaba waxaana ka mas'uul tahay tababarada ciidamada qaranka run ahaantii ciidan fara badan oo ka soo baxay dibadda way jiraan hadday Itoobiya tahay hadday meelo kale tahay hadday Ingiriiska tahay run ahaantii ciidankeenu marka dambaysa waa uu soo korayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha jagada madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u diray dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland isagoona ugu hambaliyay munaasabada sanad guurada 20aad ee ka soo wareegtay asaaska ciidamada qaranka Soomaaliland sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha jagada madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ugu baaqay inay faraha kala baxaan deegaanada Soomaaliland isla markaana nabad ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan deegaanadaasi aanay ka carqaladayn madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha jagada madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waa maalin weyn waa maalintii sanad guuradani waxay la koosatay iyadoo maanta ciidanka qaranka Soomaaliland darajooyinkiisa lagu dhawaaqay sanad guuradii 19aad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ku dhawaaqay ay maanta wada labisan yihiin meel ay joogaanba min dable ilaa iyo maartay sarkaal
ومالين ويرتي ومالين أذو قيمة بدل أو فردلا ومالين قرحي قرنبة السومان أي نما استلمتي وحن رتي وحنتهم بلينا oo ilaahay baa taaku mahadle waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya hambalyo ballaaran oo diraya dhammaan ciidamada qaranka Somaliland meel ay joogaanba iyo xaasaskooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leenahay walaalaha jaarka ee Puntland ka kootahay inay nabadgelyada ilaaliyaan oo jaarnimada dhowraan oo xuduudaha ay kala leenahay ee samaysmay boqol iyo jajja sano ka hor aynaan maanta sameynaynin ay dhowraan iyo ka codsanaya walaalaha maartay Puntland kuwa faanino ciidanka waxaan u samaysanay in karaamada iyo sharafta ku ilaashano ina cid ku duulo uma sameeyno gobolada bari ee walaalaha ku marmayana waa gobolada Somaliland kamid ah waa gobolada nabad u wadno waa gobolada horumar u doonayno waa gobolada rabeyno dhismo waxaan jecelahay in carqaladeynin markaasi nabadooda iyo horumarkooda in carqaladeynin bismillaahir rahmaanir rahiim TV-da kalsan iyo bulsho waan mahadnaqayaa waxaan jecelahay munaasabada inaan uga faa'iideysto mahadnaq iyo hambalyo inaan gaarsiiyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan kuwa aaga hore jooga ee qaranka daafacaya iyo kuwa kale meelaha shaqada looga baahan yahay joogaba waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo waxaan hambalyeynayaa iyaga iyo caruurtooda iyo qoysaskooda waxaan ilaahay uga rajaynayaa ciideeda inay ku gaadhaan nabadgelyo waxaan xuduudda qaranka ciidanka qaranku runtii waa xuduudda aan ku faanayno qaran ahaan waa ciidanka lagaga baqayo ee ka mas'uulka nabadgelyada iyo ilaalinta